بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا غيارة شرفت لميل كسات جوجتان كسو دوادا برنامج كفاقلات عيارها برنامج كان مانتيا سيوكاليتيا مغالقا نحسو وحان كو ايقدونا كل مدى ودن بيلي عياري قادها يوروب سيبا وحان ايقدونا ديرد ساري دونا EPLka oo habeenku calaadku la ciyaari kooxda kubadda cagta The Gunners ay moodeen iska caadiyeen semi-finalka League 1 ee dalka Ingiriiska soo kaleetii waxaan eegi doonaa kulamada la filayo maanta la ciyaaro ka tirsan koobkaasi ee League Cup-ka iyo liba xaaladda nadiga Manchester United ayaanu eegi doonaa inkastoo in kulamo dhowr ay United aysan ciyaarin ay saytay cudurka halista COVID-19 awgeeda balse wararka dambe United macayhin maxaan ka dareemayna malayaaba kulanka dambe ay Manchester United dhamaan ciyaartooyda ay diyaar u yihiin ciyaaraan hadaan nagu cusubtahay subscribe noo sar hadaan naga mitaan like noo dhiirigelisana la saaxiibo wanaagsan kulanka Kaliyosh caleeto la ciyaaray saxdu markay tahay 10 habeenimad mooda inay kooxda kubadda cagta The Gunners ay soo dhaweysay naadiga Sunderland ahna koox ka ciyaarta heerka labaad ee dalka Ingiriiska Arsenal ayaa waxa ay 5-1 ku xasuuqday kooxda Sunderland runtii waxaan moodeen habeenku xalitiyo habeen kale oo wax daro leh ay soo bandhigtay naadiga Arsenal garoonkooda weyn ee Fly Emirates ciyaaryahan Mbappe ayaa gool ku bilaabay naadiga Arsenal halka ciyaaryahan Nakaya uu saddex lay halkaasi ka dhaliyay soo kale ciyaaryahankooda adeer ee lagu magacaabo Charlie Patino ayaa goolkiisa ugu horeeyay u dhaliyay kooxdiisa The Gunners waana ciyaaryahan da'diisu ay tahay 18 jir waana kulanka ugu horeeyo ay ciyaarto kooxda weyn ee Arsenal uu safto goolkiisana wuxuu ku qaatay inuu ku dhaliyo 12 daqiiqo gudaheeda ciyaaryahan Patino ayaa mooday inuu yahay ciyaaryahan mustaqbal kule kubadda cagta soo kale waana ciyaaryahan la dhihi karo uu la qabsan karaa qaab ciyaareedka iminka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta The Gunners uu leeliyo laacibkooda hore ee Mikel Arteta Swalba ay noqotay kooxda kubadda cagta ee The Gunners ayaa iska xaadirsay semi-finalka eflka waxaana la filayaa in isku adka la sameyn doono maanta hadii kulamada kale soo idlaatiyo kulamada kale ayaa la ciyaari doonaa caawa saacadu markay tahay 10:45 daqiiqo saacada Geeska Afrika kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay marti toqon doontaa naadiga Brentford ayaa ah koox imika ka tirsan horyaalka Premier League moodo kulanka u dambeeyay la ciyaartay naadiga kooxda Chelsea ay si qilqila hal eber uga badisay kooxdaasi Brentford ayaa moodo runtii inay aad wax uga dhigayaan agayo Premier League kulanka caawiyaad moodo runtii inuu yahay kulan aan sahleen kooxda kubadda cagta Chelsea kulamada ugu dambeeyay moodo inay inta badan ay ku dhameysteen barajo caawsi maxaa laga filayaa kooxda maamuro tababare TT may u gudbi doonaan semi-finalka soo kale kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxay caaw qaabili doontaa naadiga Leicester City waana kulan kale oo darbiya waana kula wada sugaya runtii labada kooxood ayaa mooday inay ka wada tirsan horyaalka Premier League kulanka caawa kulan ka tirsan koox kasta doonayso inay u gudubto cagaya semi-finalka marka kulankan ayaa mooday inuu caaw ka dhax doono garoonka Anfield inta badan koobkan League 1ka inta badan waxa fursad la siiyay ciyaartoyda da'da yar siba ku jiro akademiyada naadiyaasha kala duwan inka waxaan moodaa balse in inta badan waxay ku xisaabtamaan inay ku guuleystaan koobun ciyaareed kasta marka kulanka caawad moodaa in Leicester la filaya inay soo dhaweyn inay la ciyaari doonto naadiga Reds soo kale kulanka kale jira Tottenham Hotspur waxay soo dhaweyn doonaan naadiga West Ham United inkastoo in West Ham ciyaareedkan ay tahay runtii koox aad soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan loona bogay runtii waana ciyaaryahan runtii la dhigi karo waa derby labada kooxood wax kala dhisan magaalada London soo kale tababaraha cusub ee naadiga Tottenham Hotspur ayaa doonaya in kooxda kubadda cagta Tottenham kula guuleysto koobkooda ugu horeeyay David Tottenham ayaa moodaa inta badan in aysan ku guuleysanin koobka laga ciyaaro oo horyaalka dalkaasi haday noqoto Premier League FA Cup-ka League Cup-ka iyo liba koobka kale Community-ga balse caawa waa kulan muhiim ah tababare Conte soo kale tababaraha kooxda West Ham United tababare David Moyes ayaa soo kale doonaya in kooxdiisa uu gaarsiyo final ama se uu kala guuleysto koobun kooxda kubadda cagta West Ham ayaa moodaa inay soo reebeen labada Manchester United iyo liba
Manchester City caawasayaal wada sugaya inay Tottenham xasuuqi doonto sidoo kale haddii aan nacagayo kooxda kubadda cagta ee naadiga Manchester United waxaad moodaa in United aysan ciyaarin kulamada ugu dambeeyay ee horyaalka Premier League siba laba kulan ayaa sameeyay kaasaan moodaa in loo xabsi qabo in inta badan ciyaartoyda muhiimka ah naadiga United ay la dhacayaan cudurka halista ee COVID-19 tababarka buuxa ee naadiga Manchester United waxaa ka soo qayb galay shalayto dhowr ciyaaryahan ay ka mid yihiin Rashford, Varane, McTominay, Fred, Greenwood, Shaw, Lingard, Matthias Zaha, Antonio Martial, Bailey, Wan-Bissaka, Cavani, Lindelof, Fernandes, Ahmad, De Gea, Telles, Matic sidoo kale 10 daqiiqo kadib ayaad moodaa in ay tababarka iska baxeen ciyaartoyda kale ah Greenwood, Luke Shaw, Lingard sidoo kale waxay iska tageen Carrington's Training Center kaasaan moodaa inta badan inaan loogeen sababaha uga tageen balse waxaa la dhihi karaa sababaha jira awgeeda sidoo kale ciyaartoyda aan shalayto soo caadirin tababarka buuxa ee naadiga Manchester waxaa ka mid ah Ronaldo, Van de Beek, Pogba, Dalot, Sancho, Jones sidoo kale Henderson ayaa lagu arkay tababarka naadiga Manchester United maalmaha ugu dambeeya waxaa la isdhihi karaa in kooxda kubadda cagta United weli ay la dhibaateynayso halista cudurka halista COVID-19 kulamada dambe la filaya Manchester United in ciyaarto ka dhex dano garoonka Old Trafford ayaad moodaa runtii inuu yahay kulan inta badan la eegaya xaaladaha jira awgeeda siba taageerayaasha naadiga Manchester United ay waxay ku qasbayeen ciyaar taageero walba oo doonaya inuu daawado kulanka xiga ee naadiga Manchester United ku ciyaari doonto garoonkooda weyn ee Old Trafford ay ku qasbayeen inay la yimaadaan shahaadada muujinayso inay qaateen talaalka cudurka halista COVID-19 tani aad moodaa in inta badan ay qasab ku tahay cid walba oo taageera naadiga Manchester United tani aad moodaa in United ay bilaawi doonto balse waxa kale oo dhan ay ku qasbanaan doonaan in taageero walba oo aadaya garoonka daawanaya kulan kasta kooxdiisa ciyaarayso in uu muujiyo ama uu la soo baxo ama uu la tago shahaadada tusayso inuu qaatay talaalka cudurka halista ee COVID-19 waana muhiim runtii waxaan moodaa dalka UK inta badan inuu ka mid yahay dalalka ku yaalo qaaradda Europe inta badan la dhacalayaan cudurka halista COVID-19 ayaad moodaa iminka inuu soo ragaal cali waxaana jiro cudurka la yiraahdo micron varieties kaasoo kale laga xabsi qaba barnaamijkii sportiga aad kala socoteen ciyaaraha la testo ciyaarey wanaaginta aad ayaan u mahadsantiin waqtigiina